halkan waa janalka Rafiiq Al-Macruuf. Subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan soo gelino. Taaba calaamadda gambaleelka si aad u ogaatid. Waqtiga waxa uu ahaa xilliga baldhaca. Duulimaadka diyaaradda Turkiga ee Washington waa ay imaaday waxayna ku soo degatay garoonka Atatürk ee Istanbul. waxay ahayd 10 September sanadka 2018. Rakabka diyaaradda waxa ka mid ah Jamal Khashoggi, wariyaha Sacuudiga ee la laayahay. waxa uu ku fikiray in uu haysto kalsooni iyo hami. waxa uu damacsanaa halkan uu imaaday in uu guursado iyo deganaansho Istanbul gudaheeda ah. dhibaatada ugu weyn ee taagan waxay ka dhacday gudaha safaaradda Sacuudiga. waxa uu safaaradda ka rabay Khashoggi inuu cadeeyo inuu furay xaaskiisii hore. Khashoggi waxa lagu shardiyay inuu imaado maalin kale isagoo kaligiis ah. waxay ka qaadeen warqadihii waxay ka dalbadeen in si nabadgelyo maalin kale oo kalsooni ay ku jirto uu imaado. waxa uu imaaday 28 September maalin Jimcaha. waxa uu imaaday xilligii ballanta ee qonsuliyadda. waxa uu sugay muddo saacada. waxay ka dalbadeen inuu maalin kale u imaado. isla markiiba Khashoggi waxa uu go'aansaday in qaar ka mid ah asxaabtiisu uu ogeysiyo waxa safaaradda ka socda inay isaga shaki geliyeen. Khashoggi asxaabtiisu waxa uu ku yiri waan ku kalsooni qabaa halkan waa gurigeyga. ma u malaynayo wax walba ay damacsiin inay sameyn karayaan. duhurnimo Talaada 2 Oktoobar sanadkii 2018 Khashoggi waxa uu uga tagay telefoonka xaaskiisa Khadija. waxa ku yiri haddii aad weysam waxa aad dareento waxaad isla markiiba u cad gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee Yaasin Akadi. waxayna ahayd markii ugu dambeysay ee muuqaal iyo codkiisa la arko Jamal Khashoggi. waxay bilaabeen madaxda Sacuudiga inay isku dabridaan qorshaha dilka. gelinkii dambe ee Talaadada ee 2 Oktoobar saacada 7 saac markii ay tahay waxa garoonka Istanbul ka soo degtay 15 qofood oo Sacuudiyaan ah kuwaas oo wateen laba diyaaradood. markii ay ka soo degeen diyaaradda waxay u soo dhaqaaqeen dhankii qonsuliyadda taas oo ku taalay magaalada Biibig ee gobolka Bosfor. waxa ay soo gaareen safaaraddii halkii lagu ilaalinayay Jamal Khashoggi. waxa ay joogeen muddo yar dhammaantood waxay u dhaqaaqeen dhanka aeroborka iyagoo aaday halkii ay ka imaadeen. waxay cadeeyeen booliiska iyo sardoonkii baarayay dilka Khashoggi in Khashoggi ay dileen dad ku takhasusay habka dilka. waxayna xaqiijiyeen in uu ku dhintay inta su'aal weydiinta iyo jirdilka lagu hayay. markii ay dilayeen Khashoggi waxay ka duubeen filim waxayna u direen Sacuudiga lamana garanayo halkay u direen. waxay jarjareen jirkiisa iyagoo ka dan lahaa in aan la ogaanin meydka. Turkiyiintu waxay aaminsan in Khashoggi lagu dhex dilay qonsuliyadda dhexdeeda uusan ka bixin. safaaraddu waxa lagu hayaa dulmeer iyo kaamirooyinka qarsoon in lagula socdo dhaqdhaqaaqooda. halkaasna waxa ku soo gabagaboway noloshii Khashoggi. Sacuudiguna waxay sheegteen in dilka iyaga ay ka dambeeyaan.